ma doonaysaa inaad hogaamiye noqoto ma jeceshaa inaad hogaamiye noqoto se ma rabtaa inaad hogaamiye noqoto balse waa kuma hogaamiyaha wanaagsani maanta barnaamijkaanu ka hadlaynaa waxay tahay hogaamiyaha wanaagsan su-aasha isweydiinta u baahan sidee lagu dooran karaa hogaamiye wanaagsan ama lagu gartaa ama lagu soo soocaa maanta waxaanu ka hadlaynaa sidee lagu heli karaa haddaba hogaamiye fiican ama sifooyinka lagu garto hogaamiyaha fiican su-aasha aynu isweydiinayno ayaa waxay tahay maxaa inaga hortaagan inaynu doorano hogaamiye fiican what is the prioritization used for on choice a good leader waxaa jirtaa 6 astaamood oo lagu soo sooci karo hogaamiyaha wanaagsan 6 astaamood ee lagu soo sooci karo waa inaad u eegtaa inuu leeyahay 6 astaamood hogaamiyaha wanaagsan waa inaad u eegtaa inuu leeyahay sifooyinka aynu hadda taataaban doono 6 astaamood kow inuu yahay qof aragti leh oo qodobka koowaad waxaynu ka wadnaa inuu ummadda meesha ay rabto u hagi karo iyo meesha ay hiigsanayaan inay gaadhaan marka aynu leenahay hogaamiyuhu waxaynu kusoo sooci karnaa inuu yahay qof aragti leh oo qodobka koowaada 3 miisaaniyadood ayay aragtidaas aynu ku eegi karnaa miisaaniyadda koowaad inuu yahay hogaamiye maskax furan oo wax kasta fahmaya wax kasta garanaya miisaaniyadda labaad inuu yahay qof hal abuur leh oo bulshadiisa qancin kara madadiilooyin iyo tusaalayaal soo qaadi kara inuu leeyahay talada la siiyo aqoon ama xirfad uu kaga faa'iideysan karo waa miisaaniyaddii koowaad ee aragtida ku eegaynay qodobka labaad inuu yahay hogaamiye fiican oo cadaalad ah marka aynu leenahay hogaamiye fiican oo cadaalad ah 3 miisaaniyadood ayaynu eegi karnaa oo odhan karnaa 3 miisaaniyadood ayaa lagu soo xuli karaa inuu qof cadaalad yahay inuu yahay mid aan musuq maasuq aqoon oo wax la madmadow iyo waxyaabaha hogaamiye aan eex aqoon saddexaad inuu yahay hogaamiye aan laaluush qaadan ama aan bixin wax laaluusha oo marka aynu leenahay laaluush hogaamiye waa inuu sifadiisu ay ahaataa oo nadiif ka ahaadaa inuu wax laaluusha isaguna bixin isagna la siin oo xaqa ummadiisa si nadiif ah si codkar ah si cadaalad ah uu u raadiyo sifada saddexaad ee aynu kusoo xulan karno hogaamiye wanaagsan waa inuu hogaamiyuhu lagu gartaa inuu wanaagsan yahay waxay leedahay 3 miisaaniyadood waa inuu yahay nin naftiisa kalsooni ku qaba shacabkiisana kalsooni ku qaba hogaamiyuhu inuu kalsooni leeyahay waxaanu kusoo xulan karnaa 3 miisaaniyadood waynu oran karnaa 3 miisaaniyadood ayaa u ah aragti ah inuu hogaamiyaha yahay hogaamiye kalsooni isku qaba miisaaniyadda koowaad inuu yahay hogaamiye aan ka waaban waxa uu xaq u leeyahay iyo waxay dadkiisa xaq u leeyihiin talabaad inuu yahay qof aan isla weyni ku jirin oo dadkiisa iskala weynayn bulshadiisa iskala weynayn shacabkiisa iskala weynayn talada dadkiisa ka dhageysanaya inuu yahay mid qadariya dadka kale fikradooda hogaamiyaha markaa kalsooni inuu naftiisa ku qabo 3 miisaaniyadood baan kusoo xulan karnaa talada dadkiisa si fiican markuu ugu dhageysto ka danyartaa iyo ka waxhaysta ka wax garanaya kaan wax garanayn markuu fikradooda ka dhageysto la wadaago dhibaatooyinkooda waa hogaamiye naftiisa kalsooni ku qabaynu oran karnaa qodobka afraad
aynu kusoo xulan karno hogaamiyaha wanaagsan waa inuu yahay hogaamiye wanaagsan oo karti leh. marka aynu leenahay hogaamiye waa inuu yahay hogaamiye karti leh, waxaanu kusoo xulan karnaa 3 miisaaniyadood oo nagu eeri karnaa inuu hogaamiyahaas yahay hogaamiye karti leh. miisaaniyadda koobaad, inuu xaliyo dhibaatooyinka iyo khilaafaadka ka dhex jira bulshadiisa. miisaaniyadda labaad, inuu abuuri karo mashaariic dadweynaha dhexdiisa oo iskaashato ka abuuri karo ganacsi si ay dadkiisa shaqo u helaan. miisaaniyadda saddexaad, inuu isfahan abuuri karo isaga iyo dadweynaha, ama marka qaar u yeeri karo, talo la wadaagi karo, waxyaabaha u baahan yihiin kala dhageysan karo, uu xallin karo mar kastaba balabalaymada hortaagan dadweynihiisa, uu mabaadi'da iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin uu kala shaqayn karo. qodobka 5aad aynu ku xulan karno hogaamiyaha wanaagsan waa inuu yahay hogaamiye naxariis badan oo naxariis leh, oo dadkiisa mar kasta dhibaatada loo dulqaadanaya, dadkiisa mar wali baahiyooyinkooda kala shaqaynaya, cabashada dadkiisa mar wali si fiican uga dhageysanaya, talo fiican iyo motivation siinaya. haddaba 3 miisaaniyadood ayaynu kusoo xuli karnaa inuu yahay hogaamiye naxariis badan. miisaaniyadda koobaad, inuu qof naxariis badan yahay, oo naxariistaas inaan hore ugu soo sheegnay inuu dadkiisa barobaleymadaas ugu dhan la wadaagi karo. ta labaad, inuu dadkiisa iyo dalkiisa jecel yahay. hogaamiyuhu markuu dadkiisa jecel yahay uu dalkiisa jecel yahay, waxa uu wax weyn ka qaban karaa baahiyooyinka shacabkiisa, waxa uu wax weyn ka bedeli karaa baahiyooyinka deegaankiisa, environment hadday tahay, economy hadday tahay, kalin hadday tahay, wadooyin hadday tahay, waxyaabahaas oo midhan ayuu wax ka bedeli karaa. miisaaniyadda labaad ee lagu garto inuu hogaamiye naxariis badan yahay, inuu dadkiisa dareen la wadaagi karo, waqti kasta uu la qaadan karo, uu la caweyn karo, uu la noolaan karo, uu u tegi karo, uu wareysan karo, oo kooga baahan iyo kooga uu haysanba iyo kooga uu haystaba uu la wadaagi karo, uu tegi karo. miisaaniyadda 3aad intaas aynu kaga soo xuli karnaa. qodobka 6aad ee aynu kusoo xuli karno hogaamiyaha wanaagsan oo ah qodobkii inoogu dambeeyey 6 sifood, waxaynu kusoo xulan karnaa qodobka 6aad inuu yahay qof sumcad leh. hogaamiyuhu marka aynu leenahay hogaamiyuhu waa inuu qof sumcad leeyahay, waxaynu ku sifayn karnaa ama ku eegi karnaa 3 miisaaniyadood. waynu odhan karnaa hogaamiyuhu hadduu 3daas miisaaniyadood uu leeyahay waa qof sumcad leh. ta koobaad, inuu yahay nin naftiisa ka adag oo isxakamayn kara, bulshadiisa hadday ku kacdo ku gadoodo inuu yahay qof ka hortegi kara oo isxakamayn kara naftiisa, oo waxay rabaan u fulinaya marka dambe hab siyaasadeed ama hasmas aqooneedba oo u xalliya barbarinkiisa. ka labaad, sumcad iyo sharaf uu dadkiisa ku dhex leeyahay, oo qof aan hore dhacdhac iyo waxyaabaha aan hore usoo lahayn inuu yahay. qodobka 3aad, inuu yahay nin dhacdhiciisu iska yar yahay, goobaha dhalinyartu ku wada hadasho ama ku wada kaftanto, goobaha shacabka dadweynaha ay ku wada kaftamaan, inuu yahay qof aanan wax dhacdhaca aanan lahayn. haddaba 6daas sifood haddii uu hogaamiyuhu leeyahay, waxaynu odhan karnaa shaksigaas waa shaksi ummadiisa mateli kara, dadkiisana mateli kara. qofkana markaa la dooranayo hogaamiye ama bulshada marka ay dooranayso hogaamiye waa inuu eegtaa 6daas sifood inuu leeyahay. 6daas sifoodna hore usoo sheegnay. haddaba waxaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenan oon tala siinaynaa dadka jecel inay hogaamiye doortaan inayna u dooran dangaara, inayna u dooran dan laaluush, inayna u dooran dana dhaqaale,
inayna u dooran dana gaar ah